Larry Page, sheekada ninkii aasaasay Google ee beddelay dunida. Ma isweydiisay sida hal fikrad oo ka dhalatay qol yar oo jaamacadeed ay u noqotay shirkad ay maanta isticmaalaan balaayiin qof? Sidee ayuu nin dhalinyaro ah uga soo bilaabay arday jaamacadeed una noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan adduunka? Maanta waxaan ka sheekayn doonaa nolosha Larry Page, ninka aasaasay Google, iyo safarkiisii cajiibka ahaa ee uu ku beddelay internetka iyo nolosha malaayiin qof. Carruurnimadiisii. Larry Page wuxuu dhashay 26 Maarso 1973 magaalada East Lansing ee gobolka Michigan, dalka Maraykanka. Wuxuu ku dhashay qoys aqoon badan lahaa. Aabihii, Carl Page, wuxuu ahaa bare cilmiga kombiyuutarka, hooyadiina waxay sidoo kale ahayd macallimad kombiyuutar. Gurigooda waxaa ka buuxay buugaag, kombiyuutarro iyo qalab tiknoolajiyadeed. Larry isagoo yar ayuu bilaabay inuu xiiseeyo sida kombiyuutarradu u shaqeeyaan. Wuxuu jeclaa inuu kala furfuro qalabka si uu u fahmo sida loo sameeyey. Markii uu jiray 2 sano, wuxuu go'aansaday inuu mustaqbalka dhisi doono shirkad weyn oo tiknoolajiyadeed. Waxbarashadiisa. Larry wuxuu waxbarashadiisii jaamacadeed ka qaatay jaamacadda Michigan, halkaas oo uu ku bartay computer engineering. Kadib wuxuu u gudbay jaamacadda Stanford si uu u sii wato waxbarashada heerka sare. Stanford waxay ahayd goobta beddeshay noloshiisa. La kulankii Sergey Brin. Markii uu Stanford yimid ayuu la kulmay arday kale oo lagu magacaabo Sergey Brin. Bilowgii way iskhilaafi jireen doodaha, laakiin markii dambe waxay ogaadeen inay wadaagaan hal himilo oo weyn. Waxay doonayeen inay dadka ka caawiyaan helitaanka xogta internetka si ka wanaagsan sidii markaas jirtay. Dhalashadii Google. Sanadihii 1996 ilaa 1998 internetku wuu jiray, laakiin raadinta xogtu aad bay u adkayd. Larry iyo Sergey waxay sameeyeen nidaam cusub oo qiimeeya bogagga internetka iyadoo lagu salaynayo tayada iyo xiriirada ay leeyihiin. Mashruucaasi markii hore waxaa loo bixiyey Backrub. Markii dambe waxay u bixiyeen Google oo ka timid ereyga xisaabta ee Google oo ah lambarka 1 oo ay daba socdaan 1 Magacan wuxuu astaan u ahaa himiladooda ah inay habeeyaan xog aad u badan. Garaashkii taariikhda sameeyey. 1998 waxay Google ka bilaabeen garaash yar oo ku yaal California. Maalgeliyihii ugu horreeyey wuxuu siiyey jeeg dhan $1 oo dollar. Lacagtaas waxay u noqotay bilowgii shirkad maanta qiimaheedu gaarayo $100 bilyan oo dollar. Koritaankii Google. Dadku waxay si degdeg ah u ogaadeen in Google uu ka fiican yahay makiinadaha raadinta kale. Wuxuu ahaa mid degdeg badan, natiijooyinkiisuna sax ayay ahaayeen. Maalinba maalinta ka dambaysa isticmaalayaashu way sii kordheen. Google wuxuu noqday shirkaddii ugu koritaanka badnayd dunida. Adeegyadii dunida beddelay. Google kuma ekaan raadinta internetka. Waxay soo saareen Gmail. Waxay soo saareen Google Maps. Waxay iibsadeen YouTube. Waxay horumariyeen Android oo maanta ah nidaamka taleefannada ugu isticmaalka badan dunida. Waxay sidoo kale abuureen Google Chrome oo noqday browserka ugu caansan. Adeegyadan waxay maanta isticmaalaan balaayiin qof maalin kasta. Alphabet. Sanadkii 2015 Larry Page wuxuu ku dhawaaqay isbeddel weyn. Google waxaa laga dhigay qayb ka mid ah shirkad cusub oo la yiraahdo Alphabet. Alphabet waxay maamushaa Google iyo mashaariic kale oo badan sida baabuurta iswada, caafimaadka casriga ah iyo sirdoonka macmalka ah. Larry wuxuu noqday maamulaha guud ee Alphabet. Ka degista hoggaanka. Sanadkii 2019 Larry Page wuxuu iska casilay xilka maamulaha guud. Si kastaba ha ahaatee, weli waa saamile weyn oo shirkadda ka tirsan, wuxuuna sii wadaa taageeridda hal abuurka iyo cilmi baarista. Hantidiisa. Larry Page wuxuu ka mid yahay dadka ugu taajirsan dunida. Hantidiisa waxay inta badan ka timid saamiyada uu ku leeyahay Alphabet. Qiimaha hantidiisu wuu isbeddelaa maalin kasta sababtoo ah wuxuu ku xiran yahay qiimaha saamiyada shirkadda. Casharrada laga baran karo. Sheekada Larry Page waxay ina baraysaa dhowr cashar oo muhiim ah. Midda koowaad, waxbarashadu waa furaha guusha. Midda labaad, fikrad yar ayaa noqon karta shirkad beddesha dunida. Midda saddexaad, iskaashi wanaagsan wuxuu dhalin karaa guulo waaweyn. Midda afraad, hal abuurka joogtada ahi waa waxa shirkadaha waaweyn sii hormariya. Maanta Google waa qayb ka mid ah nolosha dadka adduunka oo dhan. Wax kasta oo aan internetka ka raadino, inta badan waxaan ku bilownaa Google. Arrintaas waxaa suura geliyey 2 arday oo aan ka baqan inay fikradooda rumaystaan. Larry Page wuxuu caddeeyey in qof leh himilo, aqoon iyo dadaal uu abuuri karo wax saamayn ku yeesha malaayiin qof. Haddii aad ka heshay sheekadan, la wadaag asxaabtaada kana tag faallo adigoo sheegaya qofka ganacsade ama hal abuuraha ah ee aad rabto inaan ka sheekayno muuqaalka xiga. Mahadsanidin.